عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي بانكم هذين مساجد كجامعة إن قصوا كل ميي. wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaana ilaahay inaan u dhowaano. a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka inagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan, keennaa hadlaaya iyo keennaa lala hadlaaya, inteennuba waxaan u baahannahay ilaahay inaan u dhowaano, inaan ilaahay u dhowaano, oon aakhiradeenna u diyaar garowno, oo adduunyadan aan ka qaadanna diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiradii weynanka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay, inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey. caalamka samada dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqallo hebel baa go-ay muxuu ka tegey, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa ka inoo sheegay lahaa, meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anuwan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdilaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi, asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa, way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen, sida innaku aan u shaqaysanayeen, sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan, markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi
qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay. haddaad badin lahaydeen buu nebigu yihi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan. qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay, anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay, anu gurigii madoobaa baan ahay. waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa. nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam. markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya. su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya. haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. oo su-aasha qabriga waa maxay? waa saddexdaas su'aalood weeyaan. man rabbuka, man nebiyuka, maa diinuka. mar allii marka qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. laba malag baa u iman doonta alfataanaan, deedna way fadhiisinayaan qofka. saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan. hadduu boqor yahay waa la weydiin, hadduu caalim yahay waa la weydiin, hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin, hadduu faasiq yahay waa la weydiin. bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa. man rabbuka, ayaa ku rabbaynayey, ayaa ku quudinayey, ayaa ku arsaaqayey, ayaad caabudaysay, ayaad baryaysay, ayaad rajaynaysay, ayaad tala saaranaysay. maa diinuka, diintaadu maxay ahayd? dhaqankaagu muxuu ahaa? maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay? man nebiyuka, ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay? marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad. ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono. ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona. walaalayaal, ilaahayna haynagu sugo, allah haynagu sugo, allahana inoo dhib yareeyo. saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa. marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay, ilaahay maad arkin laakiin rumee. makhluuqaa kuu muuqda, makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo. jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko. adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo. manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid. waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa. shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat, wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa. shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa. maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato. laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid. waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan, laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa. oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa. ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa. waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay. hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii. hadduu cuquubadii ilaah iyo cadhadii buu arkayaa. hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa. adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay, aakhiradiina wax kuu muuqatay noqoni doontaa markaas. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo, laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa. wa min aayaatihi alleylu waannahaar, habeenku waa aayad weeyaan. aayad waa maxay macnaheegu? waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo.
maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayb oo la inaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeega arkaysa dhegta maqalkeega arkaysa lugta socodkeega arkaysa madaxa dhaqaaqiisa arkaysa laakiin ruuxda bini'aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay way u ooyaan haddaad tiraahdo maxaad la ooyay waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jirkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyay haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may seed u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culummadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kal jasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamul qayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su'aasha u horeysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dul yaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oon ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolay letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله مسعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان كاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكئمنا يا وأين أتقرتا ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبريده متيستي وإلهي ويان كرجها متيستي وإلهي ويان كعبسده متيستي وإلهي ويان كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو بايداده كليجي وشيغو ربي waa الله diintayduna الإسلام dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man ahabba lillaah wa abghada lillaah wa a'ta lillaah wa mana'a lillaah faqad istakmala al-iimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakadii muslimiintuna xagga ay joogaan gaaladuna xagga ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhacoo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakadda iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali
qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadha ay soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilaan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheegi ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida inakuba aaladan yare imika aan haysaneen moobeelka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xurulcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daaloo soo gaarayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه يقول شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا دان دولكي كصبح دونان دان حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نغا سو كعيي وان جيفني وان هردني هردده maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaamada sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yoom alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلى هيري آية الليل آية النهار نولشان الدنيا أن كنا لهي وماليني يا هبين مالينتينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر
وبرجينا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدنيا انت اللي جوجو واحد جوجي سوا مالني هبين قبرك هدي اللي قدقنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوش يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرها جنة كميدا الله قدقيا قال كينا واحد الله قدقيا قد النار تكميدا الله قدقيا لأن أوهردا وتضباطا كيسنا الدنيا وصود علي أي للي هلكا هكون دالو هكون نستو من آدم عليه السلام لقبل أبو إلى جوجدنا وحي الدنيا بني آدم صومري عالم البرزخ بي كجران إن وي هردا وي نسنيسا ووحا قبرك دباتك وكلا كوهيستا ورؤمها يعني وي هردان مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها دتك أدونك دوشي لا إله إلا الله إهل كيك النقضة الله ينقدقه قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسرد الندامة مرق لي أركي مايان وحاد موداب ونبي يقول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت إسكهر قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحان كما هدنا نحدنتي مرقتي أنك النقا ذي ربي جاي واكيد دافتان كبنا إيه شكور كها ويان إيه أفعاش وناكسني أدون كل ما در لك كجن نقضي ويان لأنه يصوب حيان يوم القيامة ما لنت سرجوجة ويوم قرآن كيوم بوشيج هبين مشيجن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسد هبين كدون واكاسه قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا سندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا سنة وعلى الجوغي طبان كنوا سنة حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا سنة ويا سيد الله تاقنان دونا طبان كنوا سنة حسابتا كل مان دون نين عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدبادني بودي وان نبت قلبي بودي مرقا ابو النبي يقول صونقو سيادو كل نبت قشيبو كيري بلي شك وعد وكريم إلهي وكريم هدو دونا وسكك أيا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يري وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك ماذا مجرو هدو جران أبو رسول كل أي حي ربي جيبوا قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عيد وكلا فعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كيشا
timir jeexeedu sadaqada aad u bixisaan kolay noqotana timir jeexeed walow bishiqi tamra faman lam yajid fabikalimatin tayyiba buu nebigu yidhi timir jeex timir ninkaanan helin buu nebigu leeyahay hadalka wanaagsan ha ku hadlo kelmad wanaagsan ku hadal subxaana allah waa kelmad wanaagsan alxamdulilah waa kelmad wanaagsan amri bilmacruuf waa kelmad wanaagsan dikrigu waa kelmad wanaagsan istikfaartu waa kelmad wanaagsan laa ilaaha illa allah waa kelmad wanaagsan walaalkaaga muslimkood khayrka aad u sheegtaa waa kelmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kelmad wanaagsan kalimatu tayyibatu sadaqa buu nebigu yidhi caaisha radia allahu canha uma almu'miniin ayaa tidhi markuu nebigu yidhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla bay tidhi yuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tidhi radia allaahu canha uma almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofka ag socda maalintaasi ma ninbaa ma gabadhbaa ma naagba maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jira buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa assulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badan waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru beytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati طariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adri maada yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuula allah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood markaa buu nebigu yidhi caaisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laag baa banka qiyaama looga dhigi buu yidhi inteen tukanay salaadii maqrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiradu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiradu eega meeshuu marayo aakhiradu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxii taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaalo aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysaa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid
waxaad doonta cuni kari maysid sidaa doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mid a ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا ديجس قلبك سامين يا وحنا ديجسنس قلبك سامين يا وحنا تكون ليس قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا وأفرت قصبات قلبك ابن هذا كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتب قلبك قلع وعاد هذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبيا لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء قلبك دحل لك قبيا قرآن آخر سكي سؤال الله بديو يا آخرته أنت بدل لا شك شك الله حسوس الله شكايو labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid سوق المسلمين كمصلاهم بود علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو واسدا مساجد او كلويان سدا مساجد إلهي لوغو وينينايو أيا زمنك النبي سوقنا إلهي لوغو وينينايي سدا مسجد كدحديس إلهي أن لوغو عاصيين أيا سوقنا إلهي أن لوغو دحاسيين إنك زمن كنا مانتا شيكدي دبادة تالي أيا لغا يابا إن لكن مسجد كقدوهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كدحديس بيله كيبو هنا يا مرقابو النبي يقول إلهي كوما سوء ليبو كيلي هذا أركتان بو النبي يقول إن مسجد كدحديس بيله يبادي كيبو هنا يا وعاتر هذا إلهي كوما سوء ليدا هذا أركتانا نن مسجد كدحديس قناعسي هي تجارة كدح سمينا ينا وعاتر هذا إلهي كوما بركة يدا هذا إنما بنيت المساجد
لما بنيت لها مساجد وحي لو دسيبا لو دسيب رسولك يري نولش مساجد تالا بي علماء ليهين أيا للربا إن دبدا الله ساري نولش دبدا تالا مسجد كاين لك أنا ماها عهدي نبينا عليه الصلاة والسلام يا عهدي صحابة dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhirada ay ku weyneeyeen dibaddana aakhirada ay ku weyneeyeen wallahi siirada ay ku taala Umar ibn Khattab suuqa Madiina intuu galab oran jiray halkan inna fariisiya ilaahay saacadaha rumeynay kaalaya Abdullah ibn Umar intuu yimaado Tufayl buu ku oran jiray إن مري الرعب ورنجري حقين تجنا سوقا تجنا سوق يوم يصوب حيان هذا أنا مالك قالوا لي إن مري الرع هذا أنا مالك سدحات بوري الرع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يا طفيل وتابعيها مالك سوق مرقا دور عيسى مرقو سوقي كوعل عليي وكوعل عليي بوكير يا ابن عمر سوق وادنا قيسا مالين والبا بدعتنا كما سوى يبستد بدعتنا وما يب قيسد badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaan nama fadhiisisid war halkan inna fadhiisi buu halkan noogu sheekay buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibn Umar baa ku yidhi waraa kaagan caloosha buuran li inma naqdu min ajli as-salaam waxaanu ka lahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaano baanu ka lahaynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu baanu ka lahaynaa والدعوة دعاء بانو كله هينا مسلمين تانو دعينينا يكونوا وينو دعينيان بقول قفانو دعينينا بقول كاسي وينو جوابين والدعاء لقى يا بابا بقول كأولياء إلهي أنت يكون نحجرته إن إلهي دعاء ضد النوع أقبله صلاة المسلمين تلسي ومعي صلاتين السلام عليكم نبت قل يدي إلهي يا نحاريستي إلهي يا بركاتك إلهي كركاك هذا كي كلا مسلم كواحد كليه أديقنا نبت قليدي إلهي يا نحاريست إلهي يا بركات إلهي كركاغا هذا بوكليه سلامتا صلى سوك الله هينا بقول قفا سلامينا لما بقول قفا سلامتا أمد السلامينا وينو جوابيان وحي قرنا يا صحابتو إن سلامتا مسلمين تعالى دحمرين إلهي انتو أقبلوا إن النبت دي هلان أو نحاريستي هلان أو بركات دينا هلان إنكو بغاش كأيو بداعد يا دويدا لوك الله مويانا سنة نبي لوك الله هاي ولقون ولا نجمر دعسنا ما أنت سلام تاسع لقول درجيا علي بن أبي طالب إنه يمدو كيري صاحب العيال بان هاي معيشتي بيقوا أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسحه لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قفك هذا أوين مركز لا سعته آيات هر سعتها بوكيدي هذا هر مرتع مركز مي حدنا مركز دعاء سنة يسد ما لقى يا باين الله بدأ ذو والد الله يدم بدافع أنا ذو ويدين مركز ها مركز برتا أرزاقه ده كاحد واتاس لبده والد دعاء ده كوف دربور أرزاقه ده كوفر مية ما لها إنكم يقول أحمد كيا جنا يا مي سلام تدتك أي سلام أيام بالرزق كده حركيين والدك الدعاء دي سووا دعائين بالرزق كده حركيين استغفرت أي بدن أيام بالرزق كده حركيين صلاة الضحى أي تكن أيام بالرزق كده حركيين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد موديس الصلاة جماعين لتكن أي مسجد زحمة يعيدك كده عيا دينتن إلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعدته نقبل أبنته بل إلهي دينتن وحي نوسيي إن ندون كان يآخران كدرنا كل بانو مركا نورشنا أدوية إنتان هاي سنة وفرصد يعني نضيعنا أدوية الدين هكا قادنو دينتنا أساس كيك وإيمانية يقين ويان يقين إيمانك وامحي إلهي الرماء يقينتنا وامحي آخرتها كل وينات والله هذا آخرته إن لو ويناته رقم كنا توصي
oo risqiina xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laana mujtamaci waxay noqonayaan mujtamac aakhira ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nabigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iska le iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaabay inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwa waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaa leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi bal fiirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee annakaa qaadanayna dee haddaad qaadataan in raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkoo dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay jirto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday
addoomihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeed u deganaa ribda meel la yidhaah oo cuثmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u gur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cuna isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigin nin baa lacag diidi kara soo sidaa maaha inte ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu yidhi amiirkii mu'miniinta cuثmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weeyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tagin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimida cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday
markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nebiga ii ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washiraa culimmada kaale iyo weydii cumar bnu khataab suuqa madiina intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqina haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin masjidka nebiga intuu tegey cilma albayci washiraa culimmada ka soo bartay mooyaane innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo China iyo Thailand baa laga wada duulay habrihii baa socdo kula China u socotaa xageen u soconnaa war muumin waxaa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taalla ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadanno oo diinteenna ha baranno oo diinteenna ha ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa zamanuu nebi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhaahda maanta sunnaha nebiga ku fara adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeya mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalka diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culammada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno insha allah dhahada taama guddoonnaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baan noqonnaa yaa dhegaysto wanaagsan waxaa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyaddii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajaahad lahaa wajaahaddiisu ummadda wax ku taray Usmaan bin Affaan Umar buu nabigu u diray Makka markii sulh al-Hudaybiya waa ka cudur daartay Umar
wuxuu aniga may buu Usmaan baa ku munaasaba buu yiri Usmaan baa ku munaasaba Usmaan buu nabigu yiri dal waa runtii Usmaan adigu tag Khalid bin Walid geesinimadii raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nabiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yiri ilaahina dambi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seeftoo ilaahay diintiisa u jihaad waa raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka innakuna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibuu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyey insha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marana ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay margeysaan u marti kumahiya waan deganahay ya deganahay ma sha allah ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga marka allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل